Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta nagu xiran iyo asxaabtana daawanayso, marka hore walaalkan qaaliga u saara subscribe oo janalkiisa uu yahay qiso production official. Fadlan commentiga hoose ayaan insoo dhigayaa muuqaalkiisii. Yeah, yeah, yeah. Samaica Studio. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan haddaad janalka ku cusub tahay, muuqaalkana ku cusub tahay, like noo saar. Janalka haddaad ku cusub tahay, subscribe noo saar. Aad iyo aad ayaan umahadsan tahay. Kusoo dhawow qaybtii horarka 14aad taxanada noo ahayd. Aniga runtii zaad ayaa ugu yaabanaa, waxaan qabtana waa waayey, waxaana aaday duurka ayaana joogay. Kadib anoo waxaan sameeyay waxaan fikrad waxay igu soo dhacday inaan markaas saaxiibkay waco. Telefoonka ayaa soo bixiyay, saa u waco telefoonka. Markaas kadib lambarkiisa ayaan wacay, kadibna wuu iga qabtay. Waxaana dhahay ii imaw saaxiib, isagoo markaas i weydiinaya sababtaan kugu imaanaya maxay tahay. Kadibna wuxuu yidhi, waxaan dhahay xaggee joogtaa ayaan dhahay, anigoo markaas weydiinayo. Isagana wuxuu yidhi waxaan joogaa duurka. Markaasna aniga markaas waa yaabanaa, muxuu duurka ka sameynaya ayaan dhahay. Wuxuuna yidhi ada halkee joogtaa. Kadibna waxaan dhahay duurka ayaan joogaa. Runtii waan yaabanaa. Markaas ayaan waxaan dhahay ma ii imaanaysaa, isagoo markaas hadal hoos u dhahayo. Waxay u kaadi waan ku imaan doonaa. Markaas ayaan waxaan dhahay saaxiib haddaa ii soo socon ii sheeg. Mideeda kale arrin farxad leh ayaan ku hayaa ayaan dhahay. Caawa waxaan dheelaynaa ciyaar champion ayaa jirto, marka waan daawanaynaa. Kadib markii wuu ii imaaday, waayo isku meel ayaaba joognaa. Markaas ayaan waxaan dhahay saaxiib maxaa meeshaan ka sameynaysay. Isagana uu weydiinaya maxaa meeshaan ka sameynaysay. Aniga waxaan dhahay meeshaan iskaga ciyaaray, qof gacan jabanna waa iska dhigay. Runtii markaas wuu igu qoslay, wuxuuna yidhi waxaa sameynaysa wax jira ma ahan. Kadibna waxaan dhahay adiga meeshaan maxaa ka sameynaysay, isagoo markaas madaxa xanuunaya. Kadib waxaan dhahay sawir ma ila galaysaa, isagoo markaas aad ana yaabanaha uu diidan yahay sawirka inuu ila gala. Ayaan waxaan jeclaystay in aan kaliya iska qaado sawirka. Kadibna wuxuu yidhi maxaa sawirkan badan iskaga qaadaysaa, anigoo markaas dhahaya xasuus ayaan ka dhiganayaa ila soo gal sawir. Isagoo markaas sawirka aan ka qaadayo oo diidan ayaan waxaan yaabay. Runtii waa yaabay, waxaan dhahay saaxiibo maxaa la diidanta sawirka. Waxaana dhahay soo gal. Kadib isagoo markaas sawirka aan ka qaaday, runtii ani zaid ayaan u cabsaday marka arkay waxaas. Asagana wuu baqay inuu saas yahay ma moodeen. Kadib anigoo markaas zaid u naxsan, asagana uu qeylinayo ayaan naxay. Kadibna waxaa is weydiiyey maxay tahay waxaan. Kadib asaga ayaan ku jeestay, waxaan dhahay goormee saan isku bedeshay. Runtii waxaan dhahay saan kuguma ogeyn, maxaa waay saan noqotay. Kadibna wuxuu yidhi runtii aniga ma ogeyn. Kadibna waxaan arkay wax naxdin leh sawirkayga bes, sawirkiisana wuxuu noqday horor. Runtii aniga zaad ayaan u cabsooday, aniga bes ayaa muuqday, asagana meesha ka muuqan lahaa horor ayuu noqday. Anigoo markaas ciyaar daawanayno oo champion ah oo si fiican inagu socotay, gurigeena ay imaanay oo si fiican u daawanaya ciyaarta, ayaan waxaan maqalnay wax la yaab leh. Shanqar ayaa maqalnay anigoo markaas guriga joogno. Markaas waxaan dhahay albaabkan la gargaraacayo oo soo fiiri. Kadibna wuxuu yidhi anaan soo fiirinaya saaxiib ka ciiraac. Kadibna albaabka markaa furnay, arrin naxdin leh ayaa aragnay. Runtii anigoo zaid u baqayna waan aragnay wixii saaxiibkay sawirkiisa aan ku arkay. Wuxuuna yidhi waa in dhamaatay. Anina markaas waan cararnay, runtii waa ka badbaadnay. Hadda muuqaalka dhamaysatay, walaalkeen soo dhaweeya oo channelkiisu yahay qiso production official. Fadlan hadda muuqaalka dhamaystay, subscribe dhac ku soo sii. Qaybta hoose ee commentiga ayuu yaalaa muuqaalkiisa. Insha Allah waana mar kale iyo kulanti.